ubadku waa deeqina waana ubax darayo dareen kolkoliyo daryeelay u baahan yihiin ubadku waa deeqina waana ubax darayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن دمانتين ميل كستو أتشوكتان كسو دوادا بربار سما channel أو آن هذه تشيردين كسو باهيو برنامج يدا كسابسان بربارينتا إيا تربية وناكسن عرورتا ديريقلين توالدينتا إيا وليبا دعدوين كي وراركا كسابسان عرورتا إكادعا أدونكا دافيه سكرا دوان غارهان دالكا تشارمالكا aad baad ugu mahadsan tahay haddii aad ka mid tahay bahda barbaarsama channel ood subscribe saartay ood bahda barbaarsama channel ka mid noqotay waxa aan kaa codsanayaa like iyo share labadaba haddii aad ku cusub tahay muuqaalkani kuugu horeeyo ama aad daawado ka tahay oo weli aanad subscribe saarin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto ka mid noqoto bahda barbaarsama channel siina sheer garayso si waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan uu u gaadho muuqaalkan ama muuqaalada kale ee ku jira barbaarsama channel markan iyo muuqaalkeenani waxa uu ku saabsanaanayaa ama aan ku eegaynaa waxoogaa ka mid ah kala duwanaanshaha iskuulada waddankeennii iyo iskuulaadkan waddamadan qaaradda Yurub ama meelahan anigu imika aan joogo ee aan arkay marka aad meel ku soo korto iskuul ku soo dhigato ama aad ka maxay ahayd iskuuladaas ka soo warhaysay ama walaalaha ha dhigtaan ama adigu dhigo siday doontaba ha ahaatee marka aad meel kala timaado xataa ma aha iskuul oo keliyaata marka aad meel ku korto ku soo noolayd ku soo weynaatay aad meelo kala timaado mar walba naftaada waxa ku jira isbarbardhigga ugu horeeye ee ma garanaysaa aad samaynaysaa waxa weeyaan waxyaabaha nolosha maxaa kala duwan oo marka aad si caadi oo loo fikirayo taas oo iyadoo mar walba taasi nagu jirta oo isbarbardhiggaasi nagu jiro ayaa haddana markaad aragto waxyaabo waxay ku cajab gelinaya xoog u kala duwan muddadii aan anigu ku jiray imika in aan ka shaqeeyo dhinaca iskuulada oo aan joogay iskuul ku yaala dalka Jarmalka intiina aan muuqaaladayda hore ama anigaba ay aqoonin waxaa mar walba dhacdo kastaaba aniga waxay igu keentaa inaan isbarbar dhigo tolo imika lacala haddii sidaas iskuulkeennii ahaan lahaa ama waddankeennii waxba yaanan hadalka kusii fogaanin waxaan doonayaa inaan dhowr qodob oo aniga aad iila muhiim ah oo aad ii cajab geliyey oo aan jeclaan lahaa iskuulada maaragtay waddankeennana walow aniga dee waqti hore igu dambeysay casri ay imika yihiin haddana kolleyba ay u baahan yihiin oo ay waxyaabaha fiican ee maaragtay meelaha adduunka kale lagu arko waa lagaga daydaa dadkeenu dhaqanada inta maaragtay liidata ay had iyo jeer ka soo waaridaan wadamada kale dharka iyo waxyaabo aan shaqo aynaan ku lahayn ayaynu kaga dayanaa laakiin waxa muhiim ah wixii wax inoo taraya inaynu kaga dayano ama aynu ka baranno waayo waa cilmi iskuuladeena marka la bilaabo iskuulka khudbad baa la jeediyaa khudbadaasi waxay ku saabsan tahay inay maanta tahay waa lacala haddii la jeediyaba inay maanta tahay iskuulkaas bilowgiisii sidaasaa galaas lagu galaa waa la fadhiistaa isla markiiba buug iyo qalin baa lala soo baxaa casharaa la qoraa 1 2 3 iyo ma garanaysaa ba ta ja iyo alif ba ta sa iyo wixii la dhigay baa la bilaabaa sidaas oo ay tahay ayuu ku socdaa casharkii
ilaa inta nolosha aad dhammaynayso iskuulka marmar maaragtay si canaanahoo loo sheego mooyaane ma arkaysid ama kamaba jirtaba sideedaba xiisad ku saabsan sida dadka loola dhaqmo barashada sharciga iyo waxyaabahaas. Markaan taa ku dul istaagayo iskuuladan maxaanu ku samaynaa 6 bilood ardaygu wuu bilaabayaa. Horta waxay kasoo bilaabaysaa aniga wixii iigu cajiib badnaa waxay kasoo bilaabantay intaanan shaqadeydaba u gelin waxay kasoo bilaabantay inankayga iskuulka bilaabayay. Markaasaa khudbad baa la jeediyey. khudbadda waxaa jeedinayaa maamulaha iskuulka ama directorka iskuulka. wuxuu la hadlayaa waalidiinta ardaydoodu bilaabaysa iskuulka ee ku cusub. markaasaa wuu nala hadlay, wuu nawaaniyey. weligay macallin maan arkin waddankeeni ku waaninaya ama waalidka u baryaya ilmihiisa. marka wuxuu nagu waaniyey waxaa ka mid ahayd in aanu la nimaadno dulqaad aad iyo aad u fara badan maadaama ilmahayagii iskuulka gelayo xaalad isbeddel ahna uu gelayo nolol ku cusub uu bilaabayo in ilmahaasi aanu xoog ugu dulqaadanno. inay muddo qaadanaysa buu noo sheegay intuu ilmahaasi iskuulka la qabsanayo walow ay ku kala duwan yihiin. wuxuu nagu waaninayey oo ma garanaysaa uu nagula talinayay inaanaan cidhiidhi badan iyo culays ku saarin caruurtayada dhinaca waxbarashada, oo macnaha aanaan odhan iskuul buu bilaabay waa inuu mar walba wax akhriyo dul fadhiyo, ee aanu u ogolaano caruurnimadooda iyo inay ciyaaraan. la yaab bay igu noqotay. casharka ha soo ilaaliyo waalid lagu baraarujinayo mooyaane waalid la leeyahay ilmaha culaysa ku dul saarina casharkooda. taasay ahayd waana badan oo ma garanaysaa waalid ahaan nagu socotay bay ahayd. markii aan ka shaqo galay iskuulka aan iminka joogo ayaa waxaan la bilaabay galaas cusub. galaaska cusub waxa weeyaan arday yaryar oo 6 jira ah oo iminka iskuulkii ugu horeyso oo bilaabay, walow ay xanaanooyin iyo meelo lagu soo tababaray ay ka yimaadeen. sidaasoo ay tahay haddana 6dii bilood ee ugu horeysay waxa la waday in la baro sida iskuulka loogu dhaqmo, sida dadka maaragtay ee loola macaamilo, sharciga iskuulka u yaala. haddii uu waxaa sameeyo maxaa ciqaabtiisu noqonaysaa, haddii uu waxaa kale sameeyo maxay noqonaysaa abaalmarintiisa oo waxa wanaagsan sameeyo. sida kabaha siduu xidhxidhan lahaa, sida maaragtay jaakeetka ama koodhka uu u geejisan lahaa, shundadiisa halkuu dhigan lahaa, bugaagtiisa iyo shundadiisa iyo alaabtiisa siduu u ilaashan lahaa, isugu urursan lahaa. ma garanaysaa waxyaabihii nolosha ku saabsanaa oo dhan ayaa la barayay. gidaarada mar baan insha allah video idinka soo duubi haddii ay suurto gasho lay ogolaado, waayo lama ogola inta badan. gidaarada waxaa noogu dejisan sharciyadii oo dhan. waxaa ilmaha la barayay in haddii qof kale uu ku khaldamo uu noqdo mid iska saamaxa oo saamaxaad u sameeyo, in haddii uu isagu khaldamo uu noqdo mid raaligelin bixiya oo raalli ah oo yidhaahda, in aanu ilmuhu ku mashquulin waxa aan isaga dantiisa ahayn ee hareerihiisa iyo ardayda kale ka dhacaya aanay waxba ka gelin, oo macallimiin iyo dad loo xil saaray ay joogaan. dee yacni hadal ma kusoo koobi karo. nolosha bayskeedii oo dhan ayaa ilmahaas la barayay. inta buug iyo qalin iyo ma garanaysaa samuurad la buuxiyey lama odhan qora. 2 xaashiyood
oo midna afka jarmalka tahay midna xisaab tahay ayaa loo dhiibayaa. waxaa lagu odhanayaa gurigii kaga soo shaqee. dee dabcan waa loo yaro sharaxayaa oo meesha waa sida loo qora iyo siday u qormata iyo waxaas waa la tusayaa. laakiin muhiimadda waxaa la saarayay sidan kale dhaqanka inuu la qabsado nolosha caadiga ah iyo sharciga iskuulka ku yaala iyo sideedaba sharciga jira inuu la qabsado. waa laga soo gudbay, caruurtii way la qabsatay, waxoodii iyo hawshoodii way wadeen. waxaa ku xigtay oo isla 6 bilood ee ugu horeeya ka mid ahaa oo loo dhigayaa xuquuqda ay leeyihiin, xuquuqda caruurta. haddii aad is leedahay sidii waddankii oo kale ilmuhu waxba ma fahansanaa ood qurbaha ku nooshahay, ilmaha waxaa lasoo barayba 6 bilood ee ugu horreeyuu kaa tegay iskuulka muxuu xaq u leeyahay. markaasaa waxyaabaha uu xaq u leeyahay inagu waan garanaynaa, yacni nolosha bayskeeda wuxuu xaq u leeyahay inaan la dilin, wuxuu xaq u leeyahay inaana lagu qaylin, wuxuu xaq u leeyahay inuu cunto ku filan helo, wuxuu xaq u leeyahay inuu sariir fiican iyo meel uu ku seexdo helo. waxa uu xaq u leeyahay, yacni sida aan iminka idinku tirinayo ayaa caruurta loogu sheegaya oo lagu leeyahay waxaad xaq u leedahay inaad meel fiican ood ku seexato hesho, inaad qol yeelato aad seexato. waxaad xaq u leedahay inay waalidkaa jirka kuu maydhaan oo nadiif kaa dhigaan. waxaad xaq u leedahay inaad dhar laguu soo iibiyo oo aad dhar fiican xidhato. waxaad xaq u leedahay inaad cunto kugu filan hesho ood ma garanaysaa aad dharagto ayaad xaq u leedahay. marka waxaa loo raacinayaa weliba markasta waxaasoo dhan waalidka ayaad xaq ugu leedahay inaad ka hesho, waayo waa iyaga mas-uuliyaddooda. waxaa kaloo la barayay waxyaabaha uu macallinka xaq ugu leeyahay. wuxuu xaq ugu leeyahay wixii ku adkaada inuu weydiiyo. wuxuu xaq aad ugu leedahay baa lagu lahaa haddii wax dhibi ku haystaan inaad u iman karto, la hadli karto, u sheegan karto dhibtaada. waxaad xaq u leedahay ina haddii uu macallinkani wax dhiba kugu sameeyo ama wax aanad adigu diido oo kaala kulmo in aad ka dacwoon karto ood odhan karto no, aniga taas ma igu odhan kartid, ma igu qaylin kartid, sidaasna ma igu samayn kartid. waxaa kaloo loo sheegayay inuu maaragtay ilmahani haddii macallinkani uu ciqaabo oo ciqaab khalad ah, yacni uu dareemayo inaanu mutaysanin, uu macallinku bili-aadan yahay oo la doodi karo odhan karo ciqaabta sidaasa maan mutaysanin waayo anigu khaladkaa maan lahayn. waxyaabahaas oo dhan oo aanan iminka hadal kusoo koobi karin ayaa maaragtay marka ugu horeysa caruurta laga dhisaya. waxaan isweydiinaynaa waayo inagu dadka ugu mashquulaa, waayo u eegaynaa, waayo nolosha bayskeedii oo dhan cidna maynoo sheegin. keliyaata waxaan ku kornaa waxaan dadka kale ka aragnay, ama waalidkeen aan ka aragno ama aan ka aragno biicadaynagu xeeran. laakiin cid si gaara kuugu dhigtay ama cid si gaara kaagala hadasho waxaa laga yaabaa inaanay jirin. haddii dee ay meelaha qaar ka jiraan ama iminka ay casri noqotay oo bal wax isyara bedeleen, kommentaarka iigu soo qora. macallimiinta ku sheergareeya muuqaalkan si bal siyaabahay u dhaqmaan iyaguna ay la soo wadaagaan haddii macallimiin aa garanaysaan. qodobka kale maaragtay had iyo jeer caruurta waxa la bara waxaa ka mid ah waxaa waddankeenii dee buug iyo qalin iskuulka waad imanaysaa, galaaskaad gelaysaa, waxbaad dhiganaysaa, waad ka noqonaysaa, gurigiinii baad tegaysaa marka laga reebo inteeree nusu saacaha iyo loo soo baxe intaa la carcararayo wax la cuncunayo. laakiin weli intuu macallin ilmo kaxeeyey muu barin sida suuqa looga soo adeegto. inoogumaba jirto dee baan malaynayaa ajandaha waxbarashada. waxaa la barayaa waddada siduu uga tallaabi karaa, u gawaadhida isaga ilaalin karaa. ilmihii galaaska ma dhex fadhiyayo, bannaanka loo kaxaynaya, waxaa la tusayaa sida waddada looga gudbi karaa la baraya.
sida dukaan looga adeegan karaa la tusayaa. maalmaha qaar waxaa la tegayaa oo aanu tagnaa kaymahaanu tagnaa. anigaygaasaa wax fara badan ka barta maadaama dee luuqaddu aanay tayadii ahaynoo dee markii aan luuqadda dhiganayeyna caleemo iyo dhir iyo waxaas dee inta lagu hadlo iyo sida dad ula macaamili lahayd baad dhiganaysaa moogte. markaa waxaan tagnaa kaymaha, markaasaa macalimaddu waxay sharaxaysaa noo sharaxaysaa caruurta dee iyo aniguba waan la socdaa geed walba magaciisa kan yaa garanaya ma garanayno, hadduu ilmo yar garanayno wuu sheegaya magaciisa, halkaasaa ka baranaynaa, waa la qortay. caleentaas yaa garanaya ma garanayno amaanu garanaynaa, caleen hiblaayaa la yidhaa, waa la qortay. dhirtii kaynta ku taallay gebigoodiiba wada caleen iyo jirid iyo maaragtay geedka magaciisii waa la soo bartay. maalin kalaa la baxayaayo dhagaxaanta dhulka taalla ayaa gebigoodaba lasoo baranaya. maalin kalaa haddana la baxayaayo maaragtay ubaxyo xilliga maaragtay xilligan oo kale iminka anagu aan ku jirno oo xagaagu bilaabmayo. xagaaga ka hor gugi baa jira oo waxaa soo baxaya faraawilkii iyo ubaxyadii. ubaxyadaasoo dhan gebigoodaba magacyadooda iyo siday u egyihiin iyo siday usoo baxaan iyo siday marka ugu horeysa loo beeray waxaasoo dhan ayaa loo dhigaya. waa galaaskii koobaad waxaan idinkala hadlayo. weli galaaskii labaad caruurtan sidan loo dhisayaa may gaadhin. waxaa kale oo ma garanaysaa caruurta loo dhigayaa oo la barayaa waqtiyada kala duwan. ma ogi weligay anigu ma arkin iskuulkoo lagu dhigayo. laga yaabaa inay luuqadda maaragtay marka xiisada soomaaliga la dhigayo ayaan ku yaro dhigan jirnay gu iyo xagaa iyo maaragtay jiilaal iyo waxaas. laakiin halkan way ka duwan tahay. waqtiyadiiba ayaa la barayaa. waxaa la leeyahay xilligan waxaa la yidhaahdaa jiilaal baa la yidhaahdaa. maxaa dhaca jiilaalka? waxa dhaca oo dhan baraf baa da'a, qabow baa dhaca, dhar adag baa la xidhaa, waa in la siibtaa la iska ilaaliyaa. waxaa la xidhaa marka lasoo kalahayo maadaama dhulkii madow yahay waxbaa la xidhaa oo iftiinku siinayo, gawaadhida kaa ilaalinaya, gacantaa wax lagu xidhaa. sidii loo dhaqmayey inta lagu jiro waqtigaas oo dhan baa ilmihii la baraya. waxa kale oo marka uu yimaado xilligaas kale guga oo kale roob da-ayo wixii la samayn lahaa iyo waxa dhaca iyo isbedelka cimilada ku dhaca oo dhan baa loo baraya. ma aha la baraya markaan idin leeyahay inuu qalin iyo intuu buug qaato uu qoro waxa dhacaya oo dhan, waayo weli ma buu gaadhin heerkaas uu qorayo. magacyada iyo waxa way yara qori karaan baa laga yaabaa, laakiin heerkaas oo dhan muu gaadhin. waa looga sheekeynayaa, waa la geynayaa geedadkii, geed walba magaciisi waa lasoo sheegayaa. kii qoranayaa wuu qoranayaa, kii aan qori karahaynina maskaxdiisaasuu ku haysanaya wuu baranaya. laguma joojin intaasoo kale galaaska koobaad, laakiin sanad walba way tegayaan mar kale sidee qof ilmihii uu xasuusnaada dhirtiiyo wixii. geedkan waynagay aragnay magaciisi ma xasuusataan oo kale. markay galaasyada sare gaadhaan saddexaad oo kale, labaad oo kale way qoran karaan, laakiin ka koobaad waa looga soo sheekeynaya, waa loo soo sheegaya, maskaxdu ku duubaya ilmihii waxaan oo dhan. waxaan aan idin sheegayo oo dhan hadal ahaan baa loogu gudbinayaa, ma aha qoraal ahaan. hadal ahaan iyo sawir ahaan baa loogu gudbinayaa galaaska koobaad marka la joogo. intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynayaa. kala duwanaanshuhu aad buu u fara badan yahay. waxyaabaha aan doonayo ina maaragta in ka faa'iidaysanana aad bay u badan yihiin. ila soo wadaag haddii aad iskuulkaagii wax ka xasuusato oo halkan waxyaabaha kamid aan ku sheegay kamid ah. ana qaybo kale insha Allah waan soo gudbinayaa oo kamid ah waxyaabaha kala duwanaanshaha ah ee aan ku arkay iskuuladii wadankii iyo kuwa imika halkan aan joogo. intaynu ku kulmayno kulan dambe oo kanoo kala ah insha Allah waxaan idinkaga tegayaa like badan, share badan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.